kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa Bisla TV xalay soo gaaray aminteedii soo gudbin jirnay war wixii naga soo gaaray geega Soomaalida iyo caalamka intiisa kale qodobo xiiso badan ayaa daawan doontaan intay socoto xilli tabinteena wareed balse aan ku hormaro kuwooda ugu waaweyn xisbiga mucaaradka wadaniga Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in gebi ahaanba la xaday mishiinkii baadhista dhiigga ee cusbitaalka weyn ee magaalada Ceerigaabo iyadoo uu sheegay la geeyay magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland madaxweynaha Jubbaland wuxuu soo gudbiyay liiska musharaxiinta aqalka sare iyadoo isla guddiga doorashaduna ay shaaciyeen jadwalka doorashada aqalka sare madaxweyne Dani madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa waxa uu deeq waxbarasho u ballan qaaday ardayda uga sareysa imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga sare ee maamulka Puntland midowga Yurubna wuxuu dhimay kala badh lacagihii loogu talagalay ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya intaas waa qodobada warka kuwooda ugu doorka roole imikiyaatana waxaa isku diyaarisaan qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa markii ugu horeysay shaaciyay in mishiinkii baadhista dhiigga uu lahaa cusbitaalka weyn ee magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag la xaday isla markaana la geeyay magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland xogayaha arrimaha bulshada ee xisbigaasi Maxamed Sidiiq Cabdilaahi Dhame warbaahinta gulaada iyo xafiiska xisbiga wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa saasi warbaahinta u sheegay wuxuuna sheegay xoghayuhu in wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda Soomaaliland ay ka warqabaan mishiinkaasi la xaday isla markaana ay ka gaabisay xukuumaddu inay tallaabo cad ka qaado xoghaye Dhame oo arrimahaasi ka hadlayna waxaa hadaladiisii ka mid ahaa cusbitaalkii guud ee magaalada Ceerigaabo caasimadda gobolka Sanaag waxaa la xaday mishiinkii shaybaadhka dhiigagga ee CBC Complete Blood Count oo qiimo ahaan 20,000 ku dhow oo ahaa shaybaadhka kaliya ee ay leedahay cusbitaalka magaalada Ceerigaabo ee loogu adeego ummadda sidaan xog ku helayna waxa loo iibgeeyay Garowe oo waxa weeyaan dadkii qaatay u iibgeeyeen waxa ku eedeysan dad baa lagu tuhunsan yahay inkastoo aan wali si cad wasaaraddu u sheegin oo ay qarinayso oo waxa weeyaan aan la sheegi karin waxa aad iyo aad nasiib darro u ah oo aan ummadan iyo qarankan midna qabanin in mishiinkii shaybaadhka ee ummadda ka dhaxeeyay ee cusbitaalku lahaa ee ummadda loogu adeegayay inta la xaday lagu tasarrufay waliba la iibgeeyay wasaaraddii caafimaadkuna ay ka indhaqarsanayso oo aanay sheegi karin magaaladii Ceerigaabana ay ka jirto baahi weyn oo loo qabo mishiinka la xaday qof kasta oo reer Ceerigaaba ama degmooyinka kale afarta iyaguna la wadaaga cusbitaalkaas wuxuu maanta ku qasban yahay inuu iska soo baaro hadii uu shaybaadh dhiig u baahdo suuqa oo qiimo ahaan qaaliya oo aanay qaadi karin mishiinkii ay lahaayeen ee waxa weeyaan cusbitaalka dawladda yaalayna lagu tasarrufay oo la musuqay oo inta la xaday waliba la iibgeeyay guud ahaan xogtaanu ka hayno cusbitaalkaasi adeegyadiisii hoos baa u dhaceen wax shaqo ah oo ummadda loogu qabto badani kama socoto waana gaabiska cusbitaalada guud ee gobolada ka jira ee ay la wadaagaan waxse iyaga u gaara in uu musuq baahsani ka jiro oo markan ka horeysayna oxygentii loo geeyay laga helay suuqa iyadoo lagu laxaamadayo gawaadhiyo lagu shaqaysanayo waa mas'uuliyad darro waa nidaam xumo waana niyad jab weeyaan waxaanay muujinaysaa in aanay meeshan jirin accountability iyo supervision dabagelaya shaqada ummadani halkay u socoto iyo halkay ku socoto iyo halka loogu qabanayo wasaaradda waxaan ugu baaqaynaa oo si degdeg ugu sheegaynaa oo aanu leenahay mishiinkaas shaybaadhka dhiigagga ee cusbitaalka Ceerigaabo laga xaday ee lagu tasarrufay la iibiyay in meel la saaro meel lagu cadeeyo cid kasta oo xidhanna cadaaladda la horgeeyo cid kasta ku cadaataana ay mudato madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta si rasmi ah u soo gudbiyay liiska xubnaha musharaxiinta ee ku tartamaya kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya xubnahan ayaa loo gudbiyay guddiga doorashooyinka Jubbaland
waxayna ka kooban yihiin 4 kursi oo loogu tartami doono kuraasta aqalka baarlamaanka ee laga soo dooran doono maamulkaasi Puntland. guddiga hirgelinta doorashooyinka Jubbaland ayaa madaxweynaha Jubbaland uga mahad celiyay soo gudbinta liiska musharaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. dhinaca kale guddiga hirgelinta doorashooyinka Jubbaland ayaa soo saaray jadwalka doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee laga soo dooranayo dowlad goboleedka Jubbaland. qoraalka soo baxay guddiga ayaa lagu shaaciyay in maalinta berita ay bilaabanayso diiwaangelinta musharaxiinta ku tartamaysa kuraasta xildhibaanada aqalka sare. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa deeq waxbarasho u ballan qaaday Yacquub Mursal Yuusuf oo ardaygii ugu sareeyay imtixaankii shahaadiga ee fasalka afraad ee dugsiyada sare ee Puntland. madaxweyne Deni ayaa hadalkan ka sheegay shirweynaha horumarinta waxbarashada Puntland oo maanta ka furmay magaalada Garowe kaasoo dib u eegis loogu sameynayo horumarka waxbarashada iyo caqabadaha jira. madaxweynaha Puntland wuxuu sheegay deeqda waxbarasho u ballan qaaday Yacquub Warsame inay tahay mid lagu dhiirigelinayo isaga iyo dhammaan ardayda kale ee halganka ugu jira waxbarashadooda. madaxweyne Deni wuxuu sheegay loo baahan yahay in la dhiirigeliyo ardayda si ay mustaqbalka dalkooda ula wareegaan marka ay kororsadaan aqoonta munaasibka u ah bulshadooda. Yacquub Mursal Yuusuf oo dhigan jiray dugsiga sare Boosaaso Public ayaa imtixaanka ka helay darajo gaadhaysa 99.14% wuxuuna ku dhawaaday inuu ku guuleysto darajada ugu sareysa ee imtixaanku ah 100%. midowga Yurub iyo la howlgalayaashooda ayaa kala badhimay miisaaniyadda ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya kadib markii askarta Kenya ay si qarsoodi ah uga baxeen howlgalka AMISOM. guddiga maaliyadda ayaa baarlamaanka Kenya u sheegay Isniinta shalay inay Kenya ka heshay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM lacag dhan 4.5 bilyan oo lacagta Kenya. Kenya waxay markii hore midowga Afrika ka heli jirtay 8.5 bilyan. go-aankan ayaa la xidhiidha ka bixitaanka qayb ka mid ah ciidamadii Kenya ee loo soo diray Soomaaliya si ay ula dagaalamaan ururka Al-Shabaab. baarlamaanka ayaa baadhaya sababta Kenya ay lacag yar uga heshay ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya marka loo eego miisaaniyadda. 28 dal ee midowga Yurub oo ah kuwa ugu badan ee lacagaha ugu deeqa AMISOM iyadoo loo marayo midowga Afrika ayaa taageeraya barnaamijyada iyo howlaha midowga Afrika. midowga Yurub wuxuu maalgeliyaa gunooyinka ciidamada AMISOM iyo booliska, mushaaraadka shaqaalaha rayidka ee caalamiga iyo kuwa maxalliga, qarashaadka ku baxa howlaha xafiisyada iyo kuwa kale. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa waraaqo isweydaarsaday dhowr jeer tan iyo bishii Abriil ee sanadkan waxayna go'aansadeen inay caadi ka dhigaan wadiiqooyinka isgaarsiinta ee xuduudaha oo tallaabada ugu horeysa ee loo qaado. Kuuriyada Waqooyi ayaa khadka telefoonka jartay bishii Juun ee sanadkii 2020 iyadoo xiriirkoodu xumaaday kadib markii uu fashilmay shirkii u dhexeeyay labadan dal. ayar kadib Kuuriyada Waqooyi ayaa qarxisay xafiis isgaarsiineed oo ku yaalay xadka u dhexeeya labada Kuuriyo kaas oo ahaa mari loogu talagalay inuu xiriiriyo qadka labada wadan. sidoo ku xusan heshiiska ay wada gaareen hogaamiyaasha sare waqooyiga iyo koonfurta waxay qaateen tallaabo dib loogu howlgelinayo dhammaan khadadka xiriiriya labada Kuuriya laga bilaabo 10 subaxnimo ee 27 Luulyo. wakaaladda wararka rasmiga ee Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa tiri hogaamiyaashu waxay ku heshiiyeen in tallaabo weyn loo qaado soo kabashada kalsoonida labada dhinac iyo kor u qaadista dib u heshiisiinta ayaa lagu daray hadalka. wakiil u hadlay dhanka koonfurta ayaa yidhi waan ku faraxsanahay inaan mar kale wada hadalno sanad kadib. waxaan rajaynaynaa inay tani ay u keento war wanaagsan dhammaan dadka reer Kuuriya. xiriirka labada dal ayaa soo fiicnaaday wixii ka dambeeyay sanadkii 2018 markii madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ay 3 jeer kulmeen, laakiin tani si dhaqso leh ayay u burburtay kadib markii uu burburay shirkii labaad ee u dhexeeyay Mr. Kim iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. xiisadaha u dhexeeya labada Kuuriya ayaa sii xumaaday markii dambe ay koox ka goosatay dhanka koonfurta una tallaabtay waqooyiga ay dacaayado ka dhanka koonfurta Kuuriya ka soo direen gudaha Kuuriyada Waqooyi. 20 sano ee la soo dhaafay khariidada kantaroolka Afghanistan waxay ahaan jirtay shiraac isbedelaya. halkan waxaan ku eegaynaa sawirka isbedelaya
ee cidda maamusha aagaga iyo kantaroolada. Waxay u muuqataa in Taliban lagu dhiiraday toddobaadyadii lasoo dhaafay markii ay ka baxeen ciidamadii Mareykanka iyadoo degmooyin badan ka qabsatay ciidamada dowladda. Cilmi baadhis ay samaysay laanta Afghanistan ee idaacadda BBC-da ayaa muujinaysa in dagaalyahanadu ay haatan ku xoogan yihiin guud ahaan dalka oo ay ku jiraan waqooyiga iyo waqooyi bari iyo gobolada dhexe sida Ghazni iyo Maidan. Waxay sidoo kale ku sii dhowaanayaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. Cilmi baadhis ay samaysay laanta Afghanistan ee BBC-da ayaa muujinaysa ciidamada Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO iyo xulafadooda gobolka ayaa ku qasbay Taliban inay xukunka kala wareegaan bishii Noofembar 2001 kadib markii kooxda ay gabaad siisay diidayna inay soo dhiibaan Osama bin Laden iyo shakhsiyaad kale oo ka tirsan Al-Qaacida oo lala xiriirinaya weeraradii 11 Sebtembar sanadka 2001 ka dhacay gudaha Mareykanka. Ra'iisul Wasaaraha Turuusiya ayaa ku dhawaaqay inuu wareejinayo xilka kadib markii madaxweyne uu magacaabay ra'iisul wasaare cusub. Ra'iisul wasaaraha shaqada laga eriyay ayaa Siriti sheegay inuusan noqon karin qaswade, wuxuuna mas'uuliyadda ku wareejin doonaa cidda uu madaxweynuhu doorto. Tallaabadaas oo yareyn karta qalalaasaha siyaasadeed ee adag ee ka jira waddanka waqooyiga Afrika. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inuusan ka ciyaari doonin door caqalad ah oo lagu sii muujinayo xaaladda ka taagan Turuusiya, wuxuuna intaas ku daray inuu diyaar u yahay inuu dalka ugu adeego meel kasta uu joogo. Bayaan uu soo dhigay bartiisa bulshada ayuu sidaas ku yidhi. Manjini wuxuu sheegay inuu sii wadi doono u adeegidda dalkiisa duruuf kasta oo jirta, mana qaadan doono jago maxaa yeelay waxaanu ilaalinaynaa ammaanka iyo xuquuqda dhammaan dalka reer Turuusiya. Axadii madaxweyne Kais Saied wuxuu ku dhawaaqay inuu joojiyay awoodda baarlamaanka Tunuusiya iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa xasaanadda. Wuxuu shaqada ka caydhiyay ra'iisul wasaare Manjini, wuxuuna sheegay inuu la wareegayo awoodaha fulinta isagoo ra'iisul wasaare cusub magacaabi doona. Saied wuxuu kaloo ku dhawaaqay inuu yahay garyaqaanka guud ee waddankaasi. Wuxuu ku dhawaaqay tallaabooyin kale oo istaba jooga maalintii Isniinta oo ay ku jirto banda waddanka oo dhan laga bilaabo 7 Fiidnimo ilaa 6 subaxnimo. hal bil iyo mamnuucida isu imaatinka dadka ka badan 3 qof ay isugu jira meelaha caanka ah ee loo yaqaan public places. waa tahay daawadayaal, intaas waxaan ku soo afmeerayaa warka Bisla TV. intaynu ku kulmi doono warkan warka xiga waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.